soo dhawaad saaxiib yaal dowladihii carabta ayaa la ogaaday in ay yihiin basaasiin la shaqeeya sirdoonka Mareykanka iyo Israa'iil kadib markii ay awood u yeelan waayeen inay iska dhiciyaan weerarada ka imaanaya Iiraan. Haddaba maxaa hadda ku soo beegay in la ogaado dowladaha khaliijka in ay basaasiin u yihiin sirdoonka Mareykanka iyo Israa'iil? Waxaan kula wadaagi doonaa xaqiiqda dhabta ah ee dagaalka ka dhaxeeya Iiraan iyo Carabta. Ma mid hadda soo bilowday ba mise waa mid soo jireen ah? Muxuuse salku ku hayaa? Warbixintan ayaan kugula wadaagi doonaa. Sanadihii u dambeeyay bariga dhexe waxaa ka sii kordhaya xiisad siyaasadeed iyo mid amni oo u dhaxaysa Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan iyo qaar ka mid ah dowladaha Carabta. Khilaafkaas oo muddo dheer salka ku hayay loolanka awoodda iyo aragtiyo siyaasadeed oo iska soo horjeeda ayaa mar kale si weyn u soo ifbaxay kadib dhacdooyin amni oo dhowaan ka dhacay dalal dhowr ah oo Carbeed. Warbixino ka soo baxaya ilo diblomaasiyadeed iyo falanqeeyaal amni ayaa tilmaamaya in weeraro la sheegay inay xiriir la leeyihiin Iiraan ama kooxo ay taageerto ay walaac weyn ku abuureen dowladaha gobolka. Inkastoo Iiraan marar badan ay si cad u beenisay eedeymahaasi, haddana dowlado badan oo Carbeed ayaa bilaabay inay qaadaan tallaabooyin amni oo adag si ay uga hortagaan khatar kasta oo suurtagal ah oo ka imaanaysa Iiraan. Mid ka mid ah tallaabooyinka ugu muuqda ee hadda socda ayaa ah xoojinta wada shaqaynta sirdoonka ee u dhaxeeya qaar ka mid ah dowladaha Carabta iyo quwadaha reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka iyo Israa'iil oo garab ka helaya Mareykanka. Ilo kala duwan ayaa sidoo kale tilmaamaya in isdhaafsiga xogaha amniga uu ku fiday dhinaca Israa'iil, taas oo qayb ka ah isbedel siyaasadeed oo ka socda gobolka tan iyo heshiisyadii diblomaasiyadeed ee dhowr dowladood oo Carbeed ay la galeen Israa'iil sanadihii la soo dhaafay. Wada shaqaynta sirdoon ee ka dhaxaysa dowladaha Carabta iyo Israa'iil iyo Mareykanka oo dhinac ah ayaa waxaa ka mid ah isdhaafsiga xogaha ku saabsan dhaqdhaqaaqyada militari ee looga shakisan yahay Iiraan, la socodka kooxaha hubeysan ee la sheegay in ay taageero ka helaan Tehran, iyo isticmaalka tiknoolajiyadda kormeerka iyo sirdoonka casriga ah si loo ogaado khataraha suurtagalka ah ee ka imaan kara Iiraan. Saraakiil hore oo amni ah ayaa sheegay in iskaashigan uu si gaar ah muhiim ugu yahay dowladaha Carabta ee ka cabsi qaba in saameynta Iiraan ay ku sii ballaarato gudaha gobolka bariga dhexe. Khilaafka u dhaxeeya Iiraan iyo qaar ka mid ah dowladaha Carabta ma ahan mid cusub. Tan iyo kacaankii Islaamiga ahaa ee Iiraan sanadkii 1979, Tehran waxay isku dayeysay inay ballaariso saameynteeda siyaasadeed iyo midda militari ee bariga dhexe. Taas ayaa keentay tartan saameyn oo xoogan oo u dhaxeeya Iiraan iyo dowlado Carbeed oo qaarkood u arka tallaabooyinkaas khatar kuwa ku ah xasiloonida gobolka. Dalal badan oo Carbeed ayaa sidoo kale ku eedeeyay Iiraan inay taageerto kooxo hubeysan oo ka howlgala meelo badan sida Yemen, Ciraaq, Syria iyo Lebanon. Iiraan dhinaceeda waxay sheegtaa inay taageerayso wax ay ku tilmaanto xoogaga iska caabinta ee ka soo horjeeda saameynta reer galbeedka iyo Israa'iil. Falanqeeyaal siyaasadeed ayaa sheegaya in kororka iskaashigan sirdoon ee u dhaxeeya qaar ka mid ah dowladaha Carabta, Mareykanka iyo Israa'iil uu muujinayo isbedel weyn oo ka socda siyaasadda gobolka. Horey xiriirka dowladaha Carabta iyo Israa'iil wuxuu ahaa mid aad u xadidan ama qarsoodi ah, balse hadda waxaa muuqata in danaha amni ee la wadaago ay si tartiib ah u bedelayaan sawirkaasi. Isbedelkan ayaa laga yaabaa inuu keeno isbahaysiyo siyaasadeed oo cusub oo gobolka ka sameysma, tartanka saameynta ee Iiraan iyo dowladaha Carabta oo sii xoogeysta, iyo xiisado militari oo mararka qaar ka dhex qarxa kooxaha taageerada kala duwan leh. Khilaafka Iiraan iyo dowladaha Carabta ayaa weli ah mid aan lahayn xal degdeg ah, inkastoo ay jiraan dadaallo diblomaasiyadeed oo mararka qaar lagu dejinayo xiisadda. Haddana xaaladda gobolka ayaa weli ah mid jilicsan. Khubarada amniga waxay ka digayaan in haddii loolanka siyaasadeed iyo militari uu sii kordho, uu keeni karo qalalaaso cusub oo saameeya amniga, dhaqaalaha iyo xasiloonida guud ee gobolka bariga dhexe.